nolosha adduunka waxa uu ka lahaa hadaf iyo higsi dheer balse waxa uu la daala dhacaya xanuunka haleelay lafta dheer ee aynu ka soconno iyo waliba miskaha kaasi oo uu la ildaran yahay muddo 13 sano ah isagoo marba marka ka dambaysa xanuunku uu ku sii siyaadayo waxaana gabaabsi sii noqonaya socodka iyo dhaqdhaqaaqa jirkiisa waxaan aan jiray shaqaysto xoogsada oo aan cidna u baahnayn ilaahay mooyaane laakiin maanta xanuun baa helay xanuunkaas dibadda soo saaray maanta ilaahay baa ma baahdaa xanuunkaygu waa dhabarka iyo miskaha ilaa gacanta la qabtay mooyaane markaa ka rawiyo awoodlaan awoodid marka waxaan ummadda islaamka u diisanayaa ilaahay baa ma baahday inay meel kasto qof kasta meeshu joogo meeshu doonaha joogo inuu saacawiyo nuux cabdi ibraahim waa aabba haysta 3 caruur ah oo ku nool magaalada Gabiley waa aabba danyar ah oo dhibaatada xanuunka ay u dheertahay tan saboolnimo waxa uu nolosha ka leeyahay rajooyin ay ka mid tahay inuu ka caafimaadi karo dhibaatada xanuunka ku hayo haddii ay ummadda islaamka ka caawiyaan dhaqaale loogu qaado dalka Itoobiya maadaama aan dalka gudihiisa waxba laga qaban karin marka dhaqaatiirtuna markaan u tagnay waxay guuleeyaan xanuunkaadan oo xanuun dabadeed wadanka gudihiisa waxba laga qaban karo dhaqtar dabadeed baan u baahanayaa la soo caawiyaan leh nuux cabdi ibraahim waxa uu ahaa aabbe ciyaalkiisa u xamaasha oo kala dabaasha duruufaha nolosha ha yeeshee socodka ayuu gabay waxaana u dheer hanti hoy iyo garab midna ma haysto taasina waa dibadda u soo saartay inuu ummadda islaamka ka codsado inay soo caawiyaan si uu dabiib u raadsado waxaan aabba haysta 3 ciyaal ana u shaqayn jiray maanta cid u shaqayso kala ma haystaan dadka islaamka waxa uu diisanaya qof walba wuxuu igu soo caawin karaa inuu soo caawiyo sanadihii ugu dambeeyay waxa uu ahaa dhul jiif oo garabka ayaa la qabtaa marka uu kacayo fadlan ilaahay dartii u soo caawi si aabbahan aynu rumayno hadafkiisa iyo riyooyinkiisa ee ah inuu caafimaado waxa weeyaan xanuunkayga markii hore lugtaas laga helay sidii macna xididoo kale mar buu ka sii xumaanayay ilaa 13 ilaa 14 sano ilaa 13 sano buu qaba mar buu ka sii darayay imika dhulka bay dhigtay xanuunkii marka dhaqaatiirta markaa u tagnay waxba laga qaban karin dhibay halkan xanuunkaagu waxa uu dabadeed marka dhaqtar dabadeed baan u baahnay ilaahay baa u baahday dadka islaamka waxaan leeyahay qof kasta meeshu doonaha joogay wixii lagu soo tiri karo lagu soo taro cid islaamay la soo xiriiraysa halkan waxaan ugu sheegay lambarkayga 063 417 4879 waxaan walaalayaal ka codsanayaa in ka jaarkayga ay walaalkaya 13 sano bukay 13 ka sano intii hore uu shaqaysanayay dawani lixaad la wala kiciya وأننا الحاد كيسي كعافمات قبل مسلمين تدمع وحن ملك استيجوان ويدين يعني واحد دكتور اللي كوجي يقص عاوية حما دام هو دك جديد سحب لك قبل وعي محي هيدا وحن دول نايم وضنا ده عالم قيم راح شو ده كلا اللي جيو سيتوبيا كله هنديا كله هذا الوصى عاوية ولا وحيد اللي كرسان وحيد هيدين دي بدو سو ديبتان ده مسكين كات قصة عاويسان قف عاوينا حق إلهي بكهليا ده حق إلهي يصيدك توح يا ولا الحق إلهي بكهليا ده مسكين كات قصة عاوية در إلهي أنا إنه ولا شيء هو شاركان هاي دو تباليسي هاي دبتها وخلاص قات فضلا ولا لوgu tabarucaad wax kasto aad awoodo adoo ugu shubaya lambarka shaashada ku qoran kalena xiriir isla lambarka shaashada kaaga muuqda waa Jaafar Awil Hereri telefishinka Sahan magaalada Gabiley